dadka qaar dabeecado la yaab leh ayay leeyihiin run ahaantii oo ka yaabinaysa oo ka cajab gelinaysana dadka qaar waxay leeyihiin caadooyin iyo dhaqamo xunxun iyo waxa jira dadka qaar leh dabeecado aad u wanaagsan 6 qodob ayaan kugu sheegi doonaa waxyaabo la yaab leh laga yaabaana inaad la kulantid maalin kasta soo dhawow daawade waa anigoo ah Nadra Said fadlan haddii aad naga daawanaysid Facebooka page-ka follow haddii aad naga daawanaysid YouTube-kana subscribe sidoo kalena ha ka ilaawin muuqaalkan haddaad ka heshay inaad like garayso oo aad asxaabtaada welibana u share garayso si aad ula wadaagtid 6 qodob ee soo socda 1 marka aad ku mashquushid danahaaga ku khaaska ah iyo horumarinta naftaada ama haddaad ku mashquushid waxbarashadaada iyo hawlahaaga ku khaaska ah dadka qaar ayaa ku imanaya iyagoo ku oranaya hebelow wad isbedeshay maxaa kugu dhacay baryahan xageed ka dhacday wad isbedeshay ayay kugu celinayaan sababtoo ah waxay ka waayeen samaynta waxyaabaha ka rabeen ama se waxay kugu barteen marnaba ha u joojin dadka markasta kugu yiraahdaa wad isbedeshay hebel maxaa kugu dhacay laakiin ku mashquul markasta danahaaga ku khaaska ah 2 si kasta oo aad u adag tahay waxa jira had iyo jeer qof daciif ka dhigi kara adiga qofkaas oo ah qof ku dhow ama se qofka dadka kugu dhow oo daciifka ka dhigi kara wuxuu awood u leeyahay markasta inuu ku niyad jabiyo ama se uu kugu qoslo markasta oo aad istiraadid wax wanaagsan samee marnaba ha u joojin dadka isku dayaya in ay ku liidaan ama se hoos ku dhigaan kaliya ta ku soco fikirkaaga iyo welibana qorshaha noloshaada adigoo qofna u soo marayn qofna uga fasax qaadanayn iskana dhagatir hadallada dadka qaar ee welibana raba in ay adiga daciif ka dhigaan hoosna ku dhigaan 3 waxaad aragtaa qof waqtiyada kamida aad isku fiicnaydeen laakiin maalinta aad isku xumaataan wuxuu dabagelayaa oo uu faafinayaa sirahaagii hadda qofkani waa qof aad is aaminteen waqtiyada kamida laakiin isagu intaasoo dhan wuu ilaaway hadda qofka sidan kugu samaynaya waa qof waqtiyada kamida aad isku dhaweydeen kuna sheegi jiray in uu yahay qofka kaliyaata ee dib iyo dheefba kula qaybsanaya qofka caadaystay dhaqamada caynkaas oo kale ah faafiyana ceebta qof ay shalay isku wanaagsanayeen ka fogow kana dheerow sababtoo ah adigana berito la faa'iido kuma yeelanayo qofkani 4 waxaynu aragnaa qof ku dhow markasta oo aad lacag haysato saaxiibna kugula ah marka uu jeebkaagu qoyan yahay markasta oo aad lacag haysato ama se lacag yari ku soo gasho afka ku macaaneynaya kuna soo dhawaysanaya laakiinse maalinka jeebkaagu maran yahay ee aadan lacag haysanin qofkaasi wuu ka dheeraanaya markasta dhammaantiinba waynu la kulanaa dadka noocaas oo kale ah laakiin ka fogow qofkaas sababtoo ah wuxuu kugula saaxiib yahay waa adduunyo 5 qof markasta naftiisa uun tixgeliya ama se naftiisa uun ka hadla oo yiraahdo aniga sidana aniga caynkana oo naftiisa mooyaane cid kaleba aan aqoonin cid kalena aan danaynin markastana ah qof been badan oo wuxuu ku sheekeynayana ay been tahay marka aad istiraadid fikrad u soo bandhig ama se wax la wadaagna kugu diidaya markasta oo waxaaga haba yaraata amba fikradahaaga adiga kaa soo baxaya aan tixgelinayn kuna sheegaya in aysan waxbaba tarayn fikradahaagu oo kaliya fikradihiisa iyo amarkiisu ay soconayaan isaga uun qofkaas oo kale ka fogow intaad ka fogaan kartid sababtoo ah naftiisa iyo dantiisa uun buu yaqaanaa cid kalena maba tixgeliyo berina waxba kuma qaban karo oo markasta dhulka ayuu ku dhigayaa marnaba hala saaxiibin hana ka agdhawaanin qofkaas oo kale 6 ma aragtaa adigu ama se mala kulantaa shalay qof aad caawisay ama se aad gacan qabatay aad ku caawisid lacag ama se xoogaagaba qofkii shalay tole aad soo garab istaagtay beri tole mala kulantaa ama se ma aragtay qofkii shalay tole aad soo gacan qabatay oo run ahaantii maanta intuu heer gaadhay ama se aan qof bini'aadama u baahnayn kadib markuu adiga ku arko kaa soo qaadaya sidii in aydan isba soo baran amba aanad haba yaraatee wanaag u soo samaynin oo ilaawayba abaalkii shalay aad u soo gashay kuna yasaya maanta dabcan dhammaantiinba waynu la soo kulanay qofka noocaasa ama se dadka caynkaas oo kale ah fadlan laakiin marka hore ee aad qof abaal amba wanaag u samaynaysid waxaad niyadda gashataa qofkan inuu beri ku abaal gudi doono ama se uu doqon kugu noqon doono labadaba 6 qodob ee aan ka soo sheekeynay kii aad la kulantay ama se kugu saamaynta badnaa fadlan commentiga nagula wadaag ma kugu dhacday marka aad qof si xoog ah ugu baahan tahay ama se dan kaa soo gasho marka aad wacdo ama se nambarkiisa aad qaraacdo in aad weydo ama se lagugu yidhaahdo nambarku waa mashquul amba lamaba heli karaba oo wuu xidhan yahay nambarkani hadda waa qofkaad aadka ugu baahnayd way dhacdaa markasta
in aynu weyno dadka aynu aadka ugu baahannahay laakiin number aad ku qaldantay marka aad qaraacdo marnaba laguma odhanayo waa mashquul oo isla markaba numberkaas waa lagaa qabanayaa waayo wax danaba kama lihido waad ku qaldantay numberkaas haddaba adduunkan aynu ku noolnahay ayaaba sidaas ah waxaan tusaalaha kugu soo qaatay waxa aad u baahan tahay isla markaba ma helaysid oo markasta waxaad heshaa amase kaa agdhow waxyaabo aanad u baahnayn laakiin waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku samirto waxa aad necab tahay biritole waxa aad jeceshahay si aad u gaadhid waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan iyo welibana muuqaal kastan soo dhigo waqtigaaga aad ku daawanaysid waa anigoo ah Nadira Saciid